بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaaha mahad iska leh oo noo suura galiyay in dadaalkii iyo juhdigii iyo garab istaagii walaalkeena qadar nasri aan u galnay inaan ku guuleysano ugu dambeynna maanta dabcan xorriyadiisii uu helo ilaaha uga mahad celinayna markii xigtana saaxiibada walaaladeena ah dhammaan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan reporterska wariyaasha magaalada ka soo tubiyay wararka ayaa aad ugu howlgalay hawshaani sidoo kale afartii maalin ee ugu dambeysay oo xirnaa kiiskaani si aad ugu shaqeynayay sidoo kale dadaal badan ku bixiyay shaqooyinkoodii ugu soo tagay maanta ugu dambeysay shaqooyin badan ay lahaayeen warar badan oo ay tibin lahaayeen shaqo badan oo xarumooda ay ka lahaayeen dabcan uga soo tagay garab istaaga walaalkooda soo buuxiyay howlkii dacwada lagu qaaday ilaa ay haatan garab taagan aadna ugu faraxsan in xorriyadiisii uu helo qadar dadaalkii ay bixiyeen dabcan u mira dhalo ilaaha taas uga mahad celinayna markii xigto mar hadduu helo xorriyadiisii waa arintii ugu weyneed aan u soconay sidoo kale waxaa jirta afartii maalin ninkaasi uu xirnaa sharci darada ahayd waa in dadkii soo dacweeyay dabcan ay meel soo saaraan maadaama afar maalin uu saldhigga degmada Waaberi ku xirnaa waxaan ka rabnaa taliyihii soo qabtay xaruntiisii dabcan ugu tagay u sheegay in dacwad ay ka taala saldhigga degmada Waaberi si sharaf la wariyaha ugu yimid saldhigga u yimid halkaasina lagu xiray afar maalin uu ku jiray saldhigga in meel la soo saaro afartaas maalin aan jirin wax sharci ah oo si sharci la'aan ama si gardara ugu xirna halkaas in markaan xuquuqdiisana meel la soo saaro taasa dhammaan annaga isla qabnaa maxaa leedahay afarta maalin ninkaasi uu xirnaa Soomaa xuquuqdiisa inuu doodo Soomaa in la soo cadeeyo afarta maalin Soomaa afartaas maalin sharci darada qolkaas uu ku xirnaa oo cidna aan ka hadlin maadaama maxkamadda hadda ay xorriyadiisa in meel soo saaraan waxaan rabnaa in afarta maalin uu xirnaa oo meel la isaga xareystay in meel la soo saaro halkaan u taaganahay in dacwadaasna annagana aan furan doono ilaahana uga mahad celinayna saaxiibadii ka shaqeeyana waxa leena waa maasantiin